بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka baranno weydiintan ah what is an open market operations oo loo soo gaabiyo OMO. bangiga dhexe ee waddanka waxa uu adeegsadaa walxa kala duwan si uu u xakameeyo dulsaarka iyo lacagta ku wareegaysa suuqa, balse waxa ugu awood badan saddexdan aaladood: 1 reserve requirement, 2 open market operations, 3 discount rate. hadda koor ayaan ka soo hadalnay reserve requirement, waxaadna ka heli kartaa lifaaq hoose. qeexiddan waxaan kaga hadlaynaa qaybta labaad oo ah open market operations oo loo soo gaabiyo sida aan sheegnay OMO. haddaba open market operations waxaa lagu qeexi karaa in ay tahay in bangiga dhexe ee waddanka uu iska gado ama uu soo iibsado warqado maaliyadeed ee dayn ah si uu bangiga dhexe ee waddanka u xakameeyo lacagta ku wareegaysa suuqa iyo dulsaarkaba. haddaba marka bangiga dhexe uu rabo in uu badiyo lacagta ku wareegaysa suuqa, waxa ay dowladda dib u soo gadataa warqadaha maaliyadda ee deynta ah oo ay hadda ka hor soo saartay, oo warqadihii deynta ahaa oo ay maalgashatada haysteen ayay ka soo gataan oo igu beddeshaa lacag si maalgashatada sida bangiyada oo kale ay lacagta ay heleen ugu qabtaan shaqooyin cusub iyo mashaariic cusub. midaasna sare ayay u qaadaysaa lacagta ku wareegaysa suuqa. balse marka bangiga dhexe uu rabo in uu yareeyo lacagta suuqa taalla, waxa ay dowladda dhexe soo saartaa warqado maaliyadeed oo dayn ah, waxa ayna ka gadaa maalgashatada oo waxa ay dowladda ka qaadataa lacag. maalgashatadana waxa ay qaataan warqadaha deynta ah inta la gaarayo muddada dhammaadka deynta. marka tillaabada la qaadana waxaa yaraanaysa lacagta ku wareegaysa suuqa. haddaba si uu bangiga dhexe u xakameeyo lacagta ku wareegaysa suuqa marka la joogo open market operations, waxa uu adeegsadaa labadan qaab oo kale ah contraction iyo expansionary policy. haddaan ku hormarno contraction open market operations oo ah tillaabo lagu yaraynayo lacagta ku wareegaysa suuqa. haddaba si taas ay u dhacdo, dowladda waxa ay soo saaraysaa T-bills ama T-notice ama T-bonds, waxa ayna ka gadaysaa maalgashatada oo hadda lacagta waxa ay maraysaa dhanka dowladda. midaas ayaa keenaysa in lacagta ku wareegaysa suuqa ay yaraato, dulsaarkana uu sare aado. midaas ayaa sidoo kalena waxa ay keenaysaa in dadka ay door bidaan in lacagtooda ay kaydsadaan, waxaana ka dhalata in dhaqaalaha waddanka uu hoos u dhaco. dowladdana waxa ay tillaabada u qaadaa si ay u yareyso sicir bararka ka jira waddanka. midaas ayaa waxaa loo yaqaanaa contraction open market operations. markana haddii aan ka hadalno expansionary open market operations oo liddi ku ah midii hore, tillaabadan waxa uu bangiga dhexe u qaadaa si uu sare ugu qaado ama uu u kordhiyo lacagta ku wareegaysa suuqa. haddaba si midaa loo gaaro, bangiga dhexe waxa uu markan soo iibsanayaa warqadii deynta ahayd oo markii hore laga gaday maalgashatada, oo hadda waxaa warqadda maaliyadda ee deynta la wareegaya bangiga dhexe, halka lacagtana ay helayaan maalgashatada. midaas ayaa keenaysa in lacagta ku wareegaysa suuqa ay badato, dulsaarkana hoos u aado oo maalgashigu uu sahlanaado. midaas ayaa waxa ay dhalinaysaa in mashaariic cusub waddanka ay ka hirgasho, taasoo keenaysa in dhaqaalaha waddanka uu sare aado. midaasna waxaa loo yaqaanaa expansionary open market operations. xog dheeraada oo ku saabsan bangiga dhexe, reserve requirement, T-bills, T-notes iyo T-bonds, fadlan ka dhegayso lifaaq hoose oo aan hadda kor kaga soo hadalnay. mahadsanidin, waa inoo markale haddii rabbi idmo.